السلام عليكم كسو دواada daawadayaal qaybta saddexaad ee dagaalkii qaadisiya waana qaybtii ugu dambeysay oo ku soo qaadanayno maalinkii saddexaad iyo maalintii afraad ee dagaalkii qaadisiya maalinkii saddexaad muslimiinta waxay aasteen shuhaadadoodii waxaana dib u bilowday dagaalkii adka markuu bilowday dagaalka waxa ku kadiyay muslimiinta mar labaad maroodiyadii dagaalka waxayna ku sababtay muslimiinta khasaare badan سعد wuxuu diray fardooleydii muslimiinta inay soo ogaadaan meesha ay ka jilcan yihiin maroodiyada waxaana la isku raacay inay khasab tahay in maroodiyada indhaha laga rido sacad wuxuu diray qaaqaac iyo caasim ibn camr wuxuuna ku amray inay ka taqalusaan maroodiga cad oo ah midka ugu weyn sidaa oo kale wuxuu rag culus ka diray qaybta dhexe oo uu u diray inay ka taqalusaan maroodiga cagaarka ah waa laga taqalusay maroodiga cadda kii cagaarka ahaana il ayaa laga tuuray wuxuuna bilaabay inuu qaylinayo dibna u cararayo dhammaan maroodiyada kalena dib ayay u carareen markay goobtii dagaalka noqotay maroodi la'aan muslimiintii waxay qaadeen weerar culus oo adag waxaana la iska dilay rag badan dagaalkana wuxuu socday ilaa habeenkii maalinkii afraad waxaa bilowday dagaalkii aad ayuu u sii adkaanayay maalinba maalinka ka dambayso qaaqaac wuxuu ku fikirayay qaabkii uu uga takhalusi lahaa dagaalka guud ahaantiiba wuxuu diyaarsaday rag rugcada ah wuxuuna ka codsaday inay weerar ku ekeeyaan qaybta dhexe lagana baneeyo wado si uu u gaaro hogaamiyaha guud ee ciidanka furus ninka la yiraahdo Rustum wuxuuna yiri hadii aan ka takhalusno macnawiyaadkooda ayaa dhimanayo waxayna bilaabeen howlgalkii ugu adkaa waxayna dhex jeexeen ciidankii furus waxayna gaareen khaymadii ama meeshii uu ka maamulayay Rustum ciidankiisa Rustum wuxuu isku dayay inuu naftiisa badbaadsado asagoo u cararayo dhanka webiga laakiin mid ka mid ah muslimiinta oo lagu magacaabi jiray Hilaal ibn Alqama ayaan ka harin oo ku qaaday weerar Rustum wuxuu isku tuuray webigii laakiin mujaahidkii waa ka daba tagay asagoo qoorta ka soo jaray wuxuuna yiri weedhii caan ka baxday ee ahayd qataltu Rustum wa rabbul kacba dilay Rustum rabbiga kacbadan ku dhaartay markii la dilay hogaamiyahoodii waa cabsadeen ciidankii furus mid walbana wuxuu bilaabay inuu cararo iskuna tuuro webiga muslimiintina waxay la daba istaageen gamuuno iyo waramo ayagoo ka dilay kumanaan kale halkaana waxaa ku dhamaaday dagaalkii qaadisiya kaasoo guul weyn ka soo hoyeen muslimiintii natiijada guushaas ka dhalatay waxay sababtay in Ciraaq oo dhan ay hoos imaato muslimiinta nooreeb aragtidaada sida ay kula tahay barnaamijyadeena gaar ahaan kuwa aan ugu talagalnay bisha Ramadaan mahadsanidin